magacaygu waa Cabdicasiis Xasan Axmed waxaan ahay GDSC leadkii ugu horeeyay Soomaaliya hadda waxaan ahay horjoogaha laabka roboticska jaamacadda Zamzam run ahaantii laabkan waxaa loogu talagalay ardada innovation kale inay ku soo bandhigaan innovationkooda sanadkan hadda waxaan sameynay ilaa hadda waxaan sameynay baawaro kaligood iswadaayo sidoo kale waxaan sameynay drones sidoo kale ardada qalin jebinaysa oo kale waxay sameeyaan projectiyo qaarkood looga hortagayo floodiska beeraha oo kale aan sameynay mostly ardada laabkan imaado oo wax ku sameeyo kaliya IT maahan waxa ka faa'iideysto ardada filniyada kale jaamacadda haddii ahaan lahayd ardada medicineka haddii ahaan lahayd ardada beeraha sababta loogu wacayo waxay tahay ardadaas innovationkooda inay kusoo bandhigaan Google Developer Student Club waa maxaa iskale shirkadda Google waa community international ah oo markiisii ugu horeysay laga asaasay waddanka India hadda almost qaaradaha adduunka jaamacadaha kala yaala memberka jaamacadda Zamzamna waa institutionkii ugu horeeyay Soomaaliya oo ku biiray communitieskaas internationalka Google ujeedka kale waxay tahay in ardada loo sameeyo waxa loo yaqaano networking ayagoo joogaan qaarada kala duwan sidoo kale inta ardada waxay ku booriyaan inay si fiican u bartaan Google productska sida Flutterka TensorFlowga waxa loo yaqaano Google Cloudka Firebase-ka all Google productska ee leedahay Google ayaa ardada waxaa loo sameynayaa resources ay ku baran karaan casharo iyo workshopyo siinayaan waxyaabahan ka faa'iido waxaa ka mid ah networking inaan la shaqeeyo leaders kasoo kala jeeda adduunka oo dhan oo si toos ah direct ugu shaqeeyo sidoo kale sanadkii hadda 2020 waxaa ka qayb galay DIF oo lagu qabtay summit oo lagu qabtay Nairobi kaasoo isku gumaanayeen dadka oo tech oo Google productska si fiican u yaqaano